bogaadinaynaa marka ugu horeysa dadaalka wax ku oolka ah ee jaamacadaheennu ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Runtii waxaad haysiin adeeg aad iyo aad muhiim u ah tacliinta sare ee dalka, dadkii wax ku biirin lahaa dalkan tala ha noqoto iyo wax soo saar kaleba ha noqoto, aad u mahadsantihiin. waxaan joognaa xilli ardaydeenu aysan ka fekerin marka dugsiga sare ay soo dhammaystaan ku biiridii jaamacadahooda ee dalka ku yaala. taas waxay ku tusaysaa ama ha iska bixiyo wax yarkaya lagu dhigto ama deeqa ku helo in maaragtay walwal dhinacaas uusan ka jirin. taa ammaanteedii abaalkeedan adinkaas kale. waxaan soo marnay xilli dalku uu lahaa hal jaamacadda ummadda oo ardayda daraf iyo dacal dalka wax ka barata halkaa ay ku soo waxbarasho soo doonan jireen oo in badan oo ka mid ah aysan heli jirin waxbarashada. waxaan soo marnay xilli la dhihi jiray gurigaas ama reerkaas waxaa jooga qof jaamici ah la dhihi jiray. maanta alxamdulilaah guri kasta kama marna qof jaamacad ka baxay ama dhigto. taana waa faafidda iyo baahida waxbarashadeena sare ee qof kastaba u saamaxday inta badan inuu ku biiro jaamacadaha dalka ka furan. waxaan soo marnay xilli tacliinta asaasiga markay bilowga ahayd ardaydu ay ka fikeri jireen halka tacliinta sare ay ku qaadanayaan oo ay u hayaami jireen dalalka deriska iyo kuwa carabta ee noo dhow. waan bogaadinaynaa dadaalada wax ku oolka ah ee adeegsana. waxaan rabnaa inta aan la gaarin caalamka kale ee aan wax la qaybsanayno halbeegana noo noqon kara tacliintooda sare jaamacadaha boqolaalka sano jiray inta aanan wax la qaybsan ama aanan isku jimayn ayaa waxaa lagama maarmaan ah inaan moogaan in tacliinteennu ay tahay tacliin dal soo kabanayo, dal colaado iyo abaaro soo maray iyo dibadhac oo dhan soo maray soo kabanayo, tacliintiisuna ay tahay tacliin soo kabanayso. marka halbeegaas marka hore inaan ka bilowno intaanan u tallaabin tan caalamka. waxaan u baahannahay waxbarashadeennu midda asaasiga iyo tan sareba in aan ka wada qayb qaadanno dhismaha shakhsiyadda ardayga shakhsiyaddiisa haddaanaan dhisin wax soo saarkiisa wuu yaraanayaa. marka annagoo iskaashanayna inaan xoogga saarno dhismaha shakhsiyadda ardayga, in la darso nooca ardayda aan soo saarayno waxa ay noqonayaan, bulshadan halkay ka gelayaan, ayadana waa inaan iska kaashannaa. waa in aan ku dadaalno inaan helno ama aan soo saarno arday aragti fog leh oo meel dheer wax ka arko, mustaqbalka dorosi karo, sahmin karo, waxyaabaha soo socdana dersi karo ayaan rabnaa. arday leh dareen mas-uuliyadeed na waan u baahannahay. arday leh ammaano haddii aqoontiisu ay tahay heer sare ee aqoontiisa uu maal gashto, shaqo ku helo, laakiin ammaanadiisu aysan wanaagsanayn. ma rabno aqoon-yahan marka mas-uuliyad loo dhiibo daaro jeexanayo xilli kooban oo yar. haddii dhinacaas ruuxda ammaanadu aysan ku jirin, aqoonta waxba ma tarayso. dadka aan soo saarayno dad laga nabadgalo, qalinkooda laga nabadgalo, maxaan ku dhahaa hantida qaranka iyo tan bulshadu ay ka nabadgashona waan rabnaa. dadka aan soo saarayno dad noocaasaan rabnaa inay noqdaan hadduu ilaahay. dad ka maran sadbursiga iyo qalin wax ku qaadashada ayaan rabnaa inaan soo saarno. ammaanadooda ay fiican tahay, dalka u turaayo, dadka u tiraayo. tacliintoona dhan middeena asaasiga iyo middeena sareba marka aan barbaarinayno ardayda dhinacaas waa inaan u jihaynona waan rajaynaa insha allahu tacaala. jidkeedana waad haysaan oo waan ku kalsoonahay. waxaan rabnaa arday ka badqabta aafooyinka ummaddeena ku habsaday, hadday noqoto qabyaalad, hadday noqoto dib u dhac, haddii ay noqoto wax kasta oo dib u dhac ah inay ku tilmaanaadaan ma rabno. arday horu socod ah
oo dalka iyo dadka wax taraayo. waxaan rabnaa tacliinteena sare inay horseedo isbeddel dhinaca akhlaaqda iyo aqoonta, habfakirka ardayda, habla dhaqanka dadka, ku abuuridda ardayda ruux adeeg bulsho, iyo dhiirigelinta xirfadaha iyo cilmi baarisyada la sameeyo ee xalalka loogu helayo mushkiladaha dalkeena haysto. waxaan rabnaa inta aanan u gudbin tacliinta sare ee dalalka hormaray boqolaalka sano jaamacadahoodu ay jiraan inaan ogaano tacliinteenna dadka sare ardayda ku biirayso inay ka yimaadeen dugsiyo aan tiknoolajiyada wax badan adeegsan karin oo aysan duruufta u saamixin. arday badan oo rabta kulliyadaha caafimaadka iyo injineerinka inay galaan oo aan soo arkin laababkii aasaasiga ahaa ee maadooyinkaas sharaxaadooda iyo fahamkooda sahlaaya marka la fiiriyo duruufta dugsiyadeena ay ku shaqeeyaan. arday noocaasa idiin imaanayso waxaa laydinka rabaa marka agabkii la adeegsan lahaa ee aqoontooda loo adeegsan lahaane in jaamacaduhu ay ka helaan maadaama dugsiyada in badan duruufta aysan usoo saamixin. waxaa idiin imaanaya arday badan oo kombiyuutarro aan lahayn, laga yaabo adeegsigooda inaysan arkin, haddana kuliyaddii culumta kombiyuutarrada lagu baranayay inay bartaan rabo. taana waxaa la iska rabaa jaamacadaha sida ula macaamili lahay ardayda noocaas oo duruufta aysan u saamixin. waxaa idiin imaan doono arday badan oo qawaamiis luuqadeed aan adeegsan, duruuftana u saamixin, laga yaabo inuusanba weliga qaamuus kala furin, haddana kuliyadihii afafka iyo luuqadaha inuu barto rabo. waxaasoo dhan waxaa laga rabaa jaamacadihii sida u xeerin lahaayeen. arday badan oo agabkii aqoonta aasaaska u ahaa aan soo helin duruufta ku hareeraysan waxbarashadeenna asaasiga darteed ayaa waxaa la rabaa dadaaladaas oo badan in maaragtay la geliyo. ugu dambayn waxaan soo jeedinayaa xiriirka bahda tacliinta aad u wanaagsan yahay in la sii xoojiyo, in la yeesho kulamo looga tashanayo tacliinteena isku xiran midda asaasiga iyo midda sare, si ardayga markuu dugsiga ka soo baxo uu u soo gudbi lahaa jaamacadaha asagoo tababaro badan qabo, asagoo maaragtay tashiilaad fara badan oo waxbarashada soo qaatay, asagoo akhlaaqdiisa iyo aqoontiisa ay isu dheelitiran yihiin. kadibna jaamacadihii ay ku biiriyaan tacliintii sare iyo hal abuurkii kale si aan u helna arday berrito dalka iyo dadka wax anfici karo, aqoon iyo aragti aqooneedna kusoo kordhin karo hadduu ilaahay idmo. waxaan rabnaayoo kale in aan idinkaga mahad celiyo deeqaha aad bixisaan. runtii geed kastaba intii gubtaa hoos taallo. waan ognahay duruufaha jaamacaduhu ay ku shaqeeyaan, tabartooda dhaqaale, in qaranka aysan ku lahayn wax miisaaniyad ah ee waxa yarka ee bulshada Soomaaliyeed tacliinta ee aasaasatay ee waalidku anfacooda iyo ogaalkooda ay ku socoto ay dhiibaan ayay wax ku wadaan. in badanna waaba bilaasha wax lagu baraa, inta yar soo harteen waxa ay dhiibaan inaad wax ku wadaan aan ognahay. haddana waxaan rabnaa deeqahaas la bixinaayo inay yihiin kuwo sida la sheegay ardayda mudan ee dugsiyada ku soo dhigtay sida bilaashka duruuftooda dhaqaale awood in ay gaarto. weliba waxaan soo jeedinaynaa in halkudhig ay noo ahaato aayadda qur-aanka ee ah lan tanaalul birra xataa tunfiquu mima tuxibbuun. waxaan ognahay kuliyadaha qaar inay jaamacadaha dugsiyada ay geeyaan, qaarkoodna in maaragtay aysan u saamixin duruuftu. waxaa jira arday badan oo waxbarashada ku fiican oo safka hore ah oo duruuftu aysan u saamixin kuliyadahaas qaaliga inay galaan, dugsigiina ku soo dhigtay si bilaash ah. dadka noocaas oo kale waxay u baahan yihiin dhiirigelin si mooralkooda iyo niyaddooda iyo wax soo saarkooda dalka iyo dadkuba u dheefsadaan. ayadana waa boorinaynaa. waxaan kusoo gunaanadayaa oo mar kale idinkaga mahad celinayaa dadaalkiina wax ku oolka ah ee aad gashataan tacliinta asaasiga ah, hadday noqoto talo iyo hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto booqashaha xarumaha waxbarashada. waa ku mahadsan tihiin. waxaad kaloo ku mahadsan tihiin xilliyada mas-uuliyooyinka ay dhacaan dareenka aad ka muujisaan iyo gacantiinu inay gaarto markaas meelaha ay wax la soo darsaan, ha noqoto dugsiyo ama ha noqoto bulshada Soomaaliyeed
xilliga daadadka iyo abaaruhu ay jiraan iska badaya caalamka islaamka in ay gacantiinu gaartay sida la sheegay hadda aad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala tacliinteenu inay hana qaado inaan caalamka la qaybsanno tacliinta sare ee ka jirta ka horne inaanan moogaan duruufta nagu hareeraysan iyo bulshadeenu siday tahay aad ugu mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh